الله الرحمن الرحيم كنا وعن داوديال كسو دواده برنامجka qubanaha wararka caalamka ee telefishinka HBN qodobada aan idinku wahaynana waxa kamid ah guutooyinka alqasam oo caaway shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen saddex diyaaradood oo ay leeyihiin ciidanka Israa'iil sidoo kale Saraaya al-Qudusi al-Qasam ayaa war ka soo saaray dagaaladii ugu dambeeyay ee ay la galeen ciidanka Israa'iil iyo qasaaraha ay u geysteen militariga Israa'iilna war ay goordhaweyta soo saareen waxa ay ku xaqiijiyeen qasaaro hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay iyo in ciidankooda laga soo saaray qaybo kamid ah Mareyka Gaza Ukraine ayaa ku dhawaaqday in ay dejisay markab dagaal oo Ruushka u leeyahay iyo xiisad amuurtan ku aadan oo caawa taagan madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden wuxuu qalinka ku duugay weerar Mareykanku ay ku qaadaan saldhigyada kooxaha Iiraan ay taageerto ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya haddaba arrintan ma dhici karta in ay horseedo dagaal buuxa haddii Mareykanku uu dilo qaar ka tirsan ciidamada Iiraan oo la aaminsan yahay in xarumahaas ay ku sugan yihiin Ruushka ayaa isaguna ku andacoonaya inuu ka hortagay weerar diyaaradaha dagaalka ee droniska loo adeegsaday oo Ukraine ay ku soo qaaday gobolka Belgorod banaanbaxyada ay dhigayaan beeraleyda Yurub oo ku faafay waddanka Belgium maantay xarunta baarlamaanka ee midowga Yurub ayaa gabi ahaanba waxa wadooyinkii ka xiray banaanbaxayaashan oo watay cagaf iyo weliba gaadiid kale macluumaadkan iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa معهد برشدة حرفضها قعنطة كافي إنوفيشن حرفض درسان إيا حالك شقادة قود حاشية هدو حيسوه أها أو أي حجية حكار كوكو أها يتحقنا آدن هين حالكي والله هلي ومعهد كبرشدة حرفضها قعنطة كافي إنوفيشن كافي إنوفيشن وبرشدة حرفضها إيا شتكي كوكو هاقي لها هريد فرصمدي آد كشقين لهايد وانا هاقاها قف والبه أو حرفض شقوه أو قعنطة أباهن حدبا حرفضها أتكبرنا يسوحها كمدا برشادة حرفضها دواركا هير والبا برشادة حنها iyo ميك ابكا برشادة حرفضة لايتكا برشادة بيجلينتا برشادة مكاني كذا برشادة دبكا قواردا برشادة حرفضة darawalnimada برشادة cunto karinta iyo xirfado kale oo aad ugu muhiima suuqyada shaqada hadda waxa uu qaadanayaa arday cusub waxana uu ku yaalaa galbeedka masjidka jaamaca weyn ee Hargeysa wixii faahfaahin kala xiri telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada markale daawadayaal si aad u hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waana ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku horumaraynaa dagaalka ka socda Mareyka Gaza oo caawa ay ka soo baxayaan warar xasaasiya dagaalku imika waxa uu galay habeenkii 119aad waxaana ilaa iyo maantii jiray iska horimaadyo culus duqeymo ba'an oo Israa'iil ay ku haysay qaybo kala duwan oo kamid ah Mareyka Gaza cisbitaalka Al-Nasir oo ku yaala Khan Yunis ayaa dhaawacyo iyo meydad badan halkaas la keenay xaalad adag ayaana ka jirta cisbitaalkan iyo weliba Al-Amal oo ciidanka Israa'iil ay ku hareereysanaayeen waxaan idin soo gudbinaynaa wararka ugu dambeeyay ee ku saabsan ciidanka Israa'iil oo ka baxay qaybo kamid ah Mareyka Gaza laakiin waxaynu ku hormaraynaa war goor dhaweyto ay soo direen xogaga iska cabita Falastiiniinta gaar ahaan guutooyinka al-Qasam ee garabka hubeysan ee Hamas waxay ku sheegteen in saddex diyaaradood oo ay leeyihiin ciidanka Israa'iil oo ah kuwa wax basaasa iyo kuwa loo adeegsado ismiidaaminta inay gacanta ku dhigeen howlgal ka dhacay deegaanka Al-Saytuun ee koonfurta Mareyka Gaza warkan waa war degdeg ah oo haatan soo dhacay macluumaadka dheeraadka ah ee ku soo kordhana barnaamijkan caawa ayaan idinkugu soo gudbinaynaa sidoo kale guutooyinka Ciisidin al-Qasam waxay sheegeen in deegaanka leerada Sheikh Radwan ee ku yaal magaalada Gaza waa bartamaha Mareyka Gaza inay ku beegsadeen saddex taangi oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin waxaana muuqaaladan goordhow tabaahiyay telefishinka Al Jazeera waxay sheegeen inay u adeegsadeen qoryaha loo yaqaano Al-Yasin 105 sidoo kale waxay sheegeen in ciidamo Israa'iiliyiin ay ku beegsadeen galbeedka Gaza iyagoo adeegsanaya hoobiyaal geesta kale Saraaya al-Qudus garabka hubeysan ee ururka Jihadul Islami ayaa iyaguna waxay sheegteen in ciidamo Israa'iiliyiin oo ku sugnaa deegaanka la yiraahdo warshadaha oo ku yaal galbeedka magaalada Gaza halkaas ay ku beegsadeen ciidamada Israa'iiliyiinta kadib markii ay duqeeyeen waxay sheegeen qasaare dhimasho dhaawac iskugu jira ay u geysteen ciidanka Israa'iil goor sii horeysay Saraaya al-Qudus waxay sheegeen in ciidamo Israa'iiliyiin oo saarnaa gaari
ciidamada lagu daabulo ay ku beegsadeen Khan Yunis oo koonfurta marayka Gaza iyagoo sheegay inay u adeegsadeen qoriga loo yaqaan Tandom. Israa'iil sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil weerar culus ay kula galeen bartamaha marayka Khan Yunis iyagoo sheegaya dhimasho dhaawac inay u geysteen. haddaba wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ku sugan waqooyiga marayka Gaza ayaa wuxuu soo sheegayaa in ciidamada Israa'iil gebi ahaanba ay ka baxeen dhanka waqooyiga marayka Gaza iyo weliba galbeedka marayka Gaza. tanina waxay ku soo aadeysaa iyadoo Israa'iil ay qirteen in 5 askari lagaga dhaawacay dagaaladii ugu dambeeyay. goobaha ciidanka Israa'iil ay ka baxeen waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Al-Tararah, Al-Sultans iyo Al-Tawam. waxaana halkaasi ka muuqda burbur baaxad weyn sida uu tabinayo wariyaha telefishinka Al Jazeera oo goobtaasi tagay. waxaana ka muuqday muuqaalo burbur iyo weliba dhibaato weyn oo loo geystay guryihii ku yeel deegaankaasi. macluumaadkan sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka Israa'iil saaki ay ka baxeen deegaanka la yiraahdo Al-Makhawzi oo ah waqooyiga galbeed ee marayka Gaza. halkaasna sidoo kale waxaa la sheegay in laga helay meydad dad halkaasi ciidanka Israa'iil ay ku dileen. waa tahay ciidanka Israa'iil sidoo kale saacadihii ugu dambeeyay waxay duqeyme ka geysteen deegaanka Baytalaahiya waa waqooyiga marayka Gaza. sidoo kale diyaarad dagaal oo ciidanka Israa'iil leedahay oo nooca helikobtarada ayaa gantaalo waxay ku riday waqooyiga waa koonfurta galbeed ee Khan Yunis halkaasi oo la soo sheegayo in khasaare culus oo ka dhashay. waa tahay wararka ugu dambeeya iyo falaqaynta dagaalkan gaar ahaan ciidanka Israa'iil ee ka baxay qaybo badan oo kamid ah marayka Gaza waxa ay ka macno tahayna waxaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa ee telefishinka HBN. waxaynu ku soconaynaa wararka kale. warbaahinta waddanka Mareykanka gaar ahaan telefishinka CBS oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah ayaa waxa uu sheegay in haatan la isku raacay howlgal duqeyn ah oo Mareykanku uu ka fulinayo fariisimo ku yaal Ciraaq iyo Suuriya. waxaana la sheegay in ay ku jiraan fariisimada ay ku sugan yihiin xogaga taabacsan Iiraan. xitaa waxaa la yidhi waxaa dhici karta goobahaas inay ku sugan yihiin ciidamo Iiraaniyiin ah oo taageeraya kooxahan Iiraan ay baritaarto. howlgalkan waxaa la leeyahay waxaa saxiixay madaxweyne Biden saacadihii ugu dambeeyay. lama oga xilliga howlgalkan uu dhici karo laakiin waxaaba dhici karta caawa howlgalka inuu dhaco. waxaana la leeyahay howlgalkan wuxuu qaadan karaa muddo dheer. horey waxaa u jirtay warar sheegaya in Iiraan ay ka digtay in danaheeda xitaa kuwa dibadda ah haddii la weeraro ay tallaabo qaadi doonaan. faahfaahin arrintan ku saabsan iyo in dhici karto Mareykanku inuu weerarana barnaamijkii maantay baxay ee wararka maanta ayaynu aad ugu faahfaahinay. haddii barnaamijkaasi aad daawan marka aad dhamaysato barnaamijkan isla markiiba barnaamijkii kala daawo si aad u ogaato macluumaad fara badan iyo xogaha dhanka sirdoonka laga helayo ee ku aadan weerarkan iyo digniinta Iiraan ay ka soo saartay ee la xiriirta haddii Mareykanku isku dayo in gudaha Iiraan uu duqeeyo. waxaana arrintan ku baaqayay qaar ka mid ah xubnaha aqalka Koongareeska Mareykanka oo madaxweyne Biden ku cadaadinaya in xitaa uu duqeeyo Iiraan. laakiin Iiraan waxay leedahay haddii la isku dayo in gudaha Iiraan la duqeeyo ama danaha Iiraan ee dibadda danaha maxaa loola jeedaa waa maraakiibta dagaalka Iiraan xarumaha ciidan ee ku leedahay Syria ama Ciraaq in markaasi jawaab adag ay bixin doonto Iiraan. waxaan laga cabsi qabaa xaaladdan inay faraha ka baxdo dagaalkan u baahan ayaa laga cabsi qabaa. macluumaadkan isha ayayna ku hayn doonaa. waa tahay dagaalka Ukraine baynu u gelaynaa haatan oo xagga laftigeeda dheela culus ay ka jirto. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada difaaca cirku ay soo rideen 11 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Ukraine ku soo weerartay gobolka Belgorod. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa waxa lagu yiri xalay isku day maamulka Kiev ay ku doonayeen inay ku fuliyaan weerar argagixiso oo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu bartilmaameysanayo goobo ku yaala dhulka Ruushka ayaa la fashiliyay. warka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in difaaca cirku ay qabteen oo ay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo dil haabayay gobolka Belgorod. laakiin caawa Ukraine waxaa ka soo yeeray war culus oo laga yaabo dagaalkan in weji kale uu yeelo. Ukraine ayaa waxay sheeganaysaa in ay dejisay ama ay qoosisay markab dagaal oo Ruushka uu leeyahay. warkan waxaa lagu leeyahay markabka lagu magacaabo Tarantul oo ah nooca dagaalka ayaa Ukraine ay sheeganaysaa inay dejisay.
bayaan ay soo saartay laanta sirdoonka difaaca Ukraine ee loo yaqaano HUR ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamo gaar ah ay qarxiyeen ayna ku guuleysteen inay quusiyaan markabka dagaal ee Tarantul weerar gaar ah oo xaray gariikii dambe la qaaday. Markabka ayaa waxa uu ku sugnaa badda madow. Hay'adda sirdoonka Ukraine waxay sheegtay in qarax lala helay qaybo ka mid ah markabka kadibna uu quusay. qiimaha markabka la dejiyay ayaa waxa u dhaxeeya 60 ilaa 70 milyan oo dollarka Mareykanka ah sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay laanta sirdoonka difaaca Ukraine ee HUR. ma jiro wax waraha ka soo baxay dhanka Ruushka oo ku aadan sheegashada Ukraine mana jiraan ila madax banaan oo xaqiijin kara warkan ka soo yeeraya dalka Ukraine. war kale oo ku saabsan dagaalka waddanka Ukraine guddi baaris ah oo dowladda Ruushka u xil saartay burburka diyaaradii military ee toddobaadkii hore ku dhacday gobolka Belgorod ayaa caaw waxay soo saareen natiijada baaritaanka ay sameeyeen oo ay ku soo gabagabeeyeen in diyaaradda uu ku dhacay gantaal laga soo riday nidaamka difaaca hawada ee Patriot sida ay muujinayso natiijada gabagabada baaritaanka jajabyada laga helay goobta shilku ka dhacay waxaa qayb ka mid ah halkaas laga helay baa yiri gantaalka lidka dayuuradaha ee MIM 104A oo dhismihiisu uu yahay baa yiri nidaamka Patriot ee Mareykanka oo farsameeyo. bayaanka ayaa lagu sheegay in baaritaanada sidoo kale lagu sameeyay goobta shilku ku dhacayna laga helay 110 walxaja jaban oo qaarkood ay ku qoran yihiin qoraallo calaamadaha Ingiriiska ah baa yiri. dowladda Ukraine ayaa wali ka hadlin xogtan la soo bandhigay. goor sii horeysay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda lagu dhuftay gantaalka Patriot ee Mareykanka oo farsameeyo. ma jiro wax war ah dhanka Mareykanka ka soo baxay oo ku aadan sheegashada madaxweyne Putin. waayahay ugu dambeyntii barnaamijyadeennii ugu dambeeyay toddobaadkan waxa aad ku daawateen warar kala duwan oo ku saabsan beeraleyda wadamo Yurub ka tirsan oo ka cabanaya maciishada oo korortay agabkii beeraha oo qaali noqday iyo waliba canshuuraha oo aan laga qafiifin. maantay mar kale banaanbaxyo ayaa waxay ka dhaceen waddanka Belgium gaar ahaan magaalada Brussels iyadoo horeyna banaanbaxyadu ay ga soo dhaceen wadamada Faransiiska iyo Jarmalka halkaasi oo muddo toddobaadyo banaanbaxay dhigayeen beeraleyda haddaba beeraleyda waddanka Belgium ayaa maantay waxa ay sameeyeen in ay xireen wadooyinka soo gala xarunta midowga Yurub halkaasi oo madaxda midowga Yurub ay shir ku lahaayeen waxaana ay ka dalbanayaan madaxda in ay wax ka qabtaan oo ay samata bixiyaan beeraleyda kadib markii ascaarta ay u adeegsadaan hawlaha beeraha qiimahooda uu kordhay. beeraleyda iyo booliiska ayaa isku dhacay waxaana booliiska ay ku tuureen uro ukumo iyo waliba dhalooyinka qamriga iyadoo qiiq badanna wadooyinka laga shiday. ciidamada ammaanka ayaa waxay isku dayeen inay biyo ku damiyaan dabka waxaana la sheegay taasi in sidoo kale ay keentay in muddo saacadaha wadooyinka waaweyn ee magaalada Brussels ay ku timaado hawl weyn. beeraleyda ayaa waxay ka cabanayaan in dagaalka Ukraine uu u keenay qiimo dhac weyn oo maciishada ku aadan. sidoo kale waxay leeyihiin waxyaabaha loo adeegsado tamarta iyo bacriminta beeraha ayaa kor u kacay taasi oo ay sheegeen inay saameyn ku yeelanayso noloshooda waxaana madaxda Yurub ay ka dalbanayaan in si degdeg ah amuurahan wax looga qabto. waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qubanaha wararka caalamka ee telefishinka HBN. si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa